ayaa xariga ka jiray buundo cusub oo laga hirgeliyay degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. munaasabadii xariga jirtaasi oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, gudoomiyaha degmada Axmed Dhagax, maayarka caasimadda iyo maamulka iyo madaxda dawladda hoose caasimadda Hargeysa. waxaa hadal uu ka jeediyay gudoomiyaha degmada Axmed Dhagax oo tilmaamay in buundadan dhismaheeda iyo dayactirkeeda ay iska kaashadeen dadweynaha ku dhaqan xaafadda laga hirgeliyay ee degmadaasi Axmed Dhagax, isagoo oo sheegay in ay laga maarmaan tahay in dadweynaha ku dhaqan degmadaasi dadaalka ay sameeyeen ay ku ilaaliyaan daryeelka buundadaasi. xildhibaan Cabdilaahi Aw Aadan, gudoomiyaha guddiga dhulka ee dawladda hoose caasimadda Hargeysa, ayaa isaguna muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay isxilqaankaasi ka yimid dhinaca bulshada, isagoo oo tilmaamay inay ka dawladda hoose ahaan iyaguna adeegyada bulshada wixii ay kala qaban karaan kala qabanayaan, isla markaasina dadaalkaasi ay sameeyeen uga mahad celinayaan. maayarka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Cabdiraxmaan Solteelko oo gabagabadii hadal ka jeediyay ayaa mahadnaq iyo ammaan u jeediyay dadweynaha xaafadaasi. kadib waxa uu ku dardaaray baahida loo qabo in ay kala qayb qaataan howlqabadka dawladda hoose iyo sidii adeegyada bulshada marba marka ka dambaysa loo sii horumarin lahaa, isagoo tilmaamay inay ku iman karto taasi marka ay bixiyaan ee si habsami ah ay u soo xirayaan cashuurta ku waajibtay, taasi oo kadibna ay iyaga u suurtagelayso in ay wax badan ka qabtaan adeegyada ay bulshada uga mas'uulka yihiin. buundadani run ahaantii markaan eego meesha markaan mari jiray waxay ahayd meel aad looga naxo oo marka halkaa ka talaabay habeenkiina baqdin ay ku dheer tahay. waa wax qabad fiican dhinac ahaan way yar tahay, laakiin waa wax qabad fiican oo marka meesha loo eego aad u wanaagsan. sidii Saleebaan sheegay iyo Cabdilaahi Aadanba degmooyinka magaalada oo dhan waxbaanu ka qabanaynaa. marka waxa laga yaabaa wixii aan noo dhiibataan inay noqdaan wixii aan idin qabanaa. waanagu waxaan u tagnay meesha inaan idin habayno. shalay waxaan noo dooratay inaan wax idin qabanno. hadda cashuurtii noo dhiibi weydaan de waxa uu yaraanaya wax qabadkayagii. haddii kalena uu kordhayaa marba intii aad noo